Arsenal oo dhamaystirtay saxiixeedii saddexaad ka hor xil ciyaareedka cusub. Kooxda Arsenal ayaa dhamaystirtay saxiixa khadka dhexe ee Christian Nørgaard oo ay kala soo wareegtay Brentford, waxaana laacibkan reer Denmark lagula soo wareegay heshiis dhan £10 milyan oo pound oo la hubo iyo £2 milyan oo guna ah. Sida ay warisay Athletic, Nørgaard ayaa maray tijaabada caafimaadka, waxaana lagu wadaa in si rasmi ah loo shaaciyo saxiixiisa dhammaadka isbuucan. Ciyaaryahankan 31 jirka ah ayaa la filayaa inuu keeno waayo-aragnimo iyo degenaansho kubadda dhexe ee Arsenal, gaar ahaan marka laga hadlayo inuu si wanaagsan uga qayb qaato dhismaha kubadda laga bilaabo daafaca ilaa weerarka, isagoo si habsami leh kubadda u dhaqaajiya. Nørgaard waa ciyaaryahan khadka dhexe ee difaaca ku wacan, waxaana lagu yaqaanaa xirfadiisa xiridda baasaska, boos qaadashada halista ah iyo inuu si geesinimo leh u galo dagaalada adag ee garoonka. Mararka qaarna uu si xeeladaysan qalad u galo si uu ciyaarta u joojiyo. Saxiixiisa oo barbar socda xiddiga xulka Spain ee Martin Zubimendi oo isna laga keenay Real Sociedad ayaa muujinaya isbeddel suuragal ah oo ku yimaada habka Arsenal ay u maamusho khadka dhexe. Labada ciyaaryahanba waxa ay khibrad gaar ah u leeyihiin horumarinta kubadda, iyagoo adeegsada baasaska xatooyada ah, taas oo u sahlaysa ciyaartoyda sida Declan Rice iyo Martin Odegaard in ay si xor ah kubadda u qaataan oo u hoggaamiyaan weerarka. Khibradda uu Nørgaard u leeyahay Premier League ayaa la filayaa inay si gaar ah muhiim ugu noqoto bilowga xilli ciyaareedka cusub, maadaama Zubimendi ay waqti badan ku qaadanayso la qabsiga nolosha magaalada London. Taageerayaasha Arsenal ayaa hadda rajayn kara in khadka dhexe uu noqdo mid adag oo xasiloon, isla markaana la jaanqaadi kara dabeecadda ciyaareed ee tababare Mikel Arteta. Qodobkaas ayaa ahaa qodobka caawa miiska noo saarnaa barnaamijka bandhiga ciyaaraha oo aan idiin soo jeedinaya anigoo ah Faysal Daacad. Haddii aad ilaa dhammaadka muuqaalka nala soo gaartay, ha ilaawin inaad muuqaalka like saarto, sidoo kalena aad sii share garayso. Haddii aad nagu cusubtahay, nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabta nagu xiran. Mahadsanid.